بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شري وحين أمد الصومال أركيسي وسيرو كترابيا أرهن قلبي جبوين كوا قرن ماذا صومال الله وسير كأمني جاي ضلك أيا وحوش هاي إن صدم صحفيين يسوي شرتي فيه مشارك صوماليا كقطان وأرهن آدي صحافتنا ووحن Soomaaliya qarannimada Soomaaliya ku xun soo wasiirkii amniga inuu wax ka qabto oo intaanu sheegin uu gudbiyo CID-da ay u gudbiso xeeraalinta maxkamadda u gudbiso marka loo soo bandhigo dadweynaha waxaad arkaysaa in ay tahay baqdigelin saxaafadda iyo TV-yada lagu baqdigelinayo waayo hadday run tahay wasiirka amnigu isaga cidii qarbudada Soomaaliland ee u shaqeynaysa Soomaali weyn isaga wax ka qaban lahaa inuu saxaafadda isa soo taago soo aan waxba ka qaban wax aadna sheegin saxaafadana ceebeeyo waa wax sharciga shacabka Soomaaliland dhibaato ku ah waad arkaysaa inamo yar oo Facebook-yada wax ku caaya inay Soomaaliland ku dhaliila inay jeelasha ka buuxaan maxaa kuwa mushaharka ka qaata Soomaaliya maxay jeelasha uga bixi waayeen haddii isagu laftiisu qaran dubisayn wasiirka laftiisu haddaanu qaranka dubinayn muxuu wax uga qaban waayay hadday run tahay soocha ayaa ka mas'uula saxaafadda soocha markaa Soomaali weyn baa ku sheegayaan waa Soomaali weyn wax lala yaabo waxa wasiirkii arrimaha gudaha amniga qaabilsana iyo wasiirkii saxaafadda ee warfaafinta inay yiraahdaan oo wasiirka warfaafinta yiraahdo qamax bay saxafiyiinta Soomaaliland ka qaaday TV-yada Soomaaliland ay ka qaataan isoo wasaaraha wixiyeenka Soomaaliya marka may kaga adkaadeen Hargeysa intii Soomaaliland xorta ahayd ma dhicin dad Hargeysa jooga saxafiyiin ama TV-ya oo Soomaaliland jooga oo ka shaqeeya oo Soomaaliya mushaar ka qaata waxa dhacay ma fashilka dawladnimada ee kulmiye dawladnimada fashilka ugu keenay ayay ku tilmaamaysaa qaranka Soomaaliland waxyaalaha noocaas ah shacabka Soomaaliland wax u adkaysan kara ma wax milgaana ma wax dhici karana ma war qofka suuqa dawladda ka caaya ama dhaliilaha ku sheega ayaynu ognahay oo madheer ka buuxa warninka Soomaaliya u shaqeeya ee halkan ka shaqeeya suxufiyiinta miyaanay qaran dubisahayn wasiirkii shaqada qaabilsana oo TV ka faanaya oo leh odayaal iyo waxbaan qarinana waxbaan hulaabana cidda qarannimada Soomaaliland ka soo horjeeda wax la qariyaba cidda iyadoo Hargeysa joogta Soomaali weyn u shaqeynaysa wax la qariyaba marka waxaad arkaysaa wasiirku inaanu war sax aanu hayn hadduu war sax ayo wala maxkamadayn lahaa oo shacabka Soomaaliland waxay ku warheli lahaayeen iyadoo maxkamadda xukun ay gaadhay marka maxkamadda loo gudbiyo xukunkii lagu riday markaas shacabka Soomaaliland loo sheegi lahaa labada wasiirka amniga wixii gudaha Soomaaliland qarbudaya uu ka mas'uul yahay isaga sheego oo dad bay xafiiska furayeen Soomaali weyna oo saxafiyiina oo TV-ya oo waxaan loo dul qaadan karay shacabka Soomaaliland loo dul qaadan maayo waxa noocaas lagu wado wasiirka warfaafinta isagoo saxaafadda ka mas'uula inuu yiraahdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xigeenkii Soomaaliya qamax yani lacag soo dira ay u jeedaan isaga shaqadiisa meeday Hargeysa markaa meel laga adkaaday waxay markaa sheegayaan Hargeysa laga adkaaday Soomaaliland laga adkaaday oo ay fashiliyeen bay sheegayaan waa inay iscasilaan dawladdu waa tii intellectual ee cidii u shaqeynaysa cidda cadowgeeda waa tii yada aan ogeyn wax ka qabata wax ka qabata ummaddu u dul qaadamayso رئيس وزراء صوماليا قبح صحفيين Somaliland
أما دواء عدين وبده يوصل بندقيا تما يجا عبابية أما هو عدين أما إذا عدين وأيام بدي حال سنة صحافة شعب الصومال لأنه وكسوجيا شعب الصومال لأنه وكسوجيا صوت شاشة واحد الله دمية وإذا يظن الصومال وين به وسير كأمل بوح الله على وحي كسر شيء الصومال لأن عدو الصومالي عدو الصومالي وش غينيا إسقى أيوه حلقة سارية إنه وحكي قبطه مركو وحكي قبطه وبده يوصل بندقه لكن هذا التيفي اللي جيدي والصحافة اللي جيدي أو أنا بيقول قصة الله قرني أو أمض الله يعطي أو أمض ورقور ما يسحبت الصوماليين نقطة الصومال وش قيس ومشاركة قاطع أو وح الله يا أبو أمض الله يعطي وحنا لا وسيره لبده وسير وشقده دي هذا شقده ذي كسب حوايه تأمل أمض وحنا هو صوب بندقه تما يسعى السلام إلا هو فشل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته